السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaanu maxay ahayd ka cabanaynaa dadku waxaan nahay leeydi corona virus baa laynka helay waxaanu ka cabanaynaa wasaaradii caafimaadka iyo gudida loo magacaabay hawshan loo xil saaray maalin walba waxaanu ka shaqaynaynaa hawshaas waxaanu nahay dadkii la soo karantiimay caruurteeda meel bay ku karantiimaysantahay annaga meel baan ku karantiimaysanay waxaan ugu jira dad masaakiina oo maxay ahayd u xoogsan jiro suuqooda u xoogsan jiray caruurtayadii lagama warhayo iyo dadkan mas'uulka ka ahayn annagana nagama warhayo ayaguna meel bay ku baqtiyeen annaguna meel baan baqti ku dhownahay waxaan ku codsanaynaa oo bulshada reer Soomaaliland u baahnay in codkeegaas noo gaarsiiyo cid kasta oo arinta wax nooga qaban karta walibana wasaaradda caafimaadku waa fadhiid waxba nooma qabato telefoon nagama qabtaan way nagu soo tuuraan meesha waan la xiriirnay isuduwaha iyo agaasimaha guudba midkoodna telefoonka waa mar aanay naga qabanin iyo mar ay leeyaan inay iimaanayna waxaan bishii hore ee afraad ayaa la igu dhawaad xanuunsanaysa hal bil baa ay dhamaatay markaas waxa taas ku cadaynaysa inaan dadkan wax shaqo oo loo qabanayo aanay jirin waxaan ka mid ahay dadkii la soo karantiinay runtii dadkaas oo ahaa dad iska ladan waayo dadka ladan baa halka la geenayay laakiin dadka seriouska waxa la geenayay daryeel dadkaas halkaas muddo dheer bi ku xariisan yihiin ilaa bil laba bilood meelahaasay dadka halkan aanu ku xariisanahay runtii dadkan haba yaraatee cid u timid oo la soo xiriirdhay haday tahay guddiga loo xilsaaray guddiga qaranka ahayd wasaaradda caafimaadka gaar ahaan isku duwaha wasaaradda caafimaadka iyo dadkii kale ku shaqo lahaaba cid haba yaraatee u timid xaaladooda la socotay oo marba qofka ladnaada iyo qofka kaleba u timid oo ka soo kormeeraysa ma jirto sidaa darteed runtii aad iyo aad bay dadkan u dhiban yihiin waxay ahaayeen dad mas'uuliyiin waxay iskugu jiraan hooyooyin runtii dadkan ilaahay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay waa ka dulqaaday xanuunkii caafimaad buu siiyey way wada ladan yihiin maanta gurmadka kaliya ay u baahan yihiin waxa weeyaan yaa naga meesha naga saara weeyaan oo naga furfura oo runtii dadku way wada ladnaayeen qaar baaritaano dambe laga qaaday baa jiray qaar aan laba baarin baa jiray oo meesha lagu soo xareeyay qaar baaritaano dambe inta laga qaaday negative noqday baa jiray hase ahaatee hadda wax haba yaraatee dib ugu soo noqday ma jiro marka muhiimaddu waxa weeyaan war xanuunka ilaahay waa naga dulqaaday bal meeshii yaa nagu soo noqdo xaaladdeedii ka warhayo oo dadkii waanu ladnaano xanuunka ilaahay caafimaad buuna siiyey war meesha yaa naga furfura waxaanu ka codsanaynaa guddida qaranka ciddii kale shaqo ku leh howlahan runtii wasaaradda caafimaadka inay noo yimaadaan xaaladayada dib u fiiriyaan oo meesha ay naga sii daayaan sida ugu dhaqsaha badan inay naga sii daayaan waayo anagaa jecel dadkayga inaan xanuun gudbin inay dhibaata gaadhin inay ma garanaysaa runtii saynu wada ogsoonnahay xanuunku qofku hadduu markuu ku dhaco hadduu 14 casho uu hayo wax ka badan 14 casho hadduu hayo ma gudbin karayo xanuunkii haba yaraatee wuxuu gudbin karayo ma jirto sidaa darteed maadaama uusan gudbin karahayn annaguna bil iyo 2 bilood baan ku xariisanahay meesha maadaama xanuunkii dhintay oonu ka ladnaanay waxaa weeyaan war dib noogu soo noqda war baaritaankii ma garanaysaa runtii dambe aad naga qaadeen dee waa naga qaadeen war meesha naga sii daaya oo noo kaalaya oo xaaladeeda dib u fiiriya baanu ka codsanaynaa dowladda sharafta leh jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa dee fariinta waanu gaarsiinaynaa isaga laftigiisa waayo waa madaxweynaha qaranka weeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo madaxweyne runtii daacada oo qof kasta u damqadaya dalkiisa jooga waxaan ka codsanaynaa madaxweyne dee ma garanaysaa bal cabashadayadaas dadkaas aanu nahay inaad dee aad hawshaas insha Allah markii ku soo gaadho aad dib u fiiris waxaan ka mid ahay dadka halkan lagu soo xareeyay ee la leeyahay corona ku haya lagu soo qaaday dhakhaatiirta ayaana soo qaaday dhakhaatiirtu ana soo qaaday wax allaaro waxay xanuunay nagu cadeeyeen amba dabagalay nagu sameeyeen ma jiro imaka muddo bil ah ayaan ku xidhanay meesha muddadaana wax allaaro wax nagu soo cadeeyay ma hayno qofkana waa ina wax lagu cadeeyaa amba wax laga waayaa way fiicantay karantiimada maanu diidin nalama baalin haddii aan nala baalinna nalama baalin waxaanu kala ka cabanaynaa nadaafad xumo cuntadii wixii aan cunaynay qashinkii ayaana hor yaalla gogashii maalintii aanu nimi imika waxaanu joognaa 25 habeen gogashii maalintii aanu nimi taallay baanu ku seexannaa iyadii baa casaatay nadaafad xumo aanu ka sii cabanaynaa daryeel la'aan baanu ka cabanaynaa والسلام عليكم ورحمة الله الرحيم waxaanu nahay dadka lagu soo xareeyay
meel halkan ku xaraysan dabeed waxa weeye nala kuma soo noqon waxaa naloola dhaqamay maxaabiis ahaanoo kale waxaa meesha taalla kutaafadii oo ay bahalo bakteriyo wax ka dhasheen markaa waxaanu rabnaa oo aanu u baahannahay in arrintayada la eego laga galo askari ciidanka qaranka Somaliland guutada 99 annagoo fadhigaa u soo gurmanaynabu gaadho nala dhacay markaa oo nala soo qaado hargeysa la keenay annagoo koomo ku jirna madaxaan dhulka ku dhufanay laamiga annagoo dhakhtarkii ku jirna oo koomadii ka baxnay oo iska ladanoo samacasho ku jirno dawadii noo socotaba leeyir corona laga baadhaya waxba nalga waayay imika bil baan la haystaa dawadii iyo waxayadiiba waa ina taagan waxna lagu haystana garameeno cidi nooma timaado meeshu way u rashaa gedigeediba maalintiina la keenay musayaashii naloo keenay baa alaan ka haysanaa dawladda markaa cuntadeeduna meeshu way dhimatay dawladda markaa waxaan ka codsanaynaa in dee ama naloo yimaado ama dee waxaan meesha naga sidaayo dawladda markaa bil dambeena ku jira dee caqligal maaha markaa dee inayna la sii daayo laxooma qabno caadi baan nayo waxba dee nagamaba qaadinba yaa cabirayba ka horeysa marka hore cidi wax makaa qaadiba ka horeysa meelunba lasga kaayo inoo lagu yidhi ku jira dawladda waxna naguma hayaan waxna dee may oran corona dee qabtaa corona dee qofku marku qabo dhiiggiisa la qaado waa la baadhaa waxma dee dhiigna nagamay qaadin marka waa mashruuc lacag lagu qaadanayo weeyaanoo meeshana lagu xareystay